دكتور صلبان عيسى حقلته وسيء وزيركي هراء وزارة عافيمادك الصوماليلان أتكلم عن سنتين دوريسي كان كوبان أنا سيسو دوان وحلا دورتي شركدون كعصوبة أقل كجراها وكيلة الصوماليلان كسياسي هان يكديجان هانبا سيداد وارك تدورشات شركدون كعصوب. runtii marka hore waan salaamaya xasan adigii iyo bahda on cable ba runtii waxa aan aad ugu faraxsanahay guud ahaanba sida doorashadu u dhacday doorashadii guud ee hore ee 31kii May dhacday isa sidkanayd ama labada doorasho ee wada socday ahayd iyo tan shir gudoonka doorha dhacday intuu waxa u dhaceen si habsamiya oo aad u wanaagsan oo aad iyo aad runtii u ah wax lagu farxo taariikhdana insha Allah gali doonta maxsuulka ka soo baxayna aad baan ugu qanacsanahay waana hambalyeynaya Cabdirasaaq oo noqday gudoomiyaha shir gudoonka aad baan u hambalyeynaya runtiina waxay noo dhacday doorasho guud ahaanba shacabka reer Somaliland wax ku ool u ah oo waxay ahayd doorasho aad loo eegayay marka inay guul noogu dhamaato danta qaranka ayaa ku jirtay waan ku faraxsanahay wasiir doorashadii hore de waxa ku guuleystay xisbiyada mucaaradka haddii noqoto xildhibaanadii golayaasha deegaanka intooda badan golaha wakiilada aqlabiyadoodii imika shirkadoonkii bay ku guuleysteen adiguna kulmiyaad ka tirsaneed ogaalkay sidee kula muuqataa guuldarada xisbiga kulmiye soo gaadhay run ahaantii waxa weeye xisbiga kulmiye wuxuu ka mid yahay asxaabta ka jirta waddanka tartan baa dhacay tartanka muu guul daraysan wuu guulaystay baan aaminsanahay way jiraan kolleyba dhaliilo iyo arrimo badan oo keenay inaanu ka gaabsanno ama aanu ka gaabino meeshaan doonayna inaanu gaadhno taasna waxay keenaysaa in xisbigu sida dhaqanka caalamka xisbiyada siyaasigii markay doorasho galaan way isqiimeeyaan marka qiimeyn baan isku samayn doonaa oo haddaanu doonayna inaanu boqolkiiba boqol keenno oo aanu boqolkiiba 80 keennay 20kaasi meesha ku lumeen dib baanu ka sixi doonaa laakiin uma arko guul darri waxaan aad ugu faraxsanahay annagoo ah xisbul xaakimkii in doorashadii ay u dhacdo sidii ugu habboonayd in ruuxantii aan weliba aad ugu ammaanaya madaxweynaha in uu ma garanaysaa aanaan u dowladeyn mucaaridkii ee si cadaalad ku dhisan tartanku u dhacay in waxyaabaha aad sheegtay aad leedahay way muuqdaan oo guuldarrada qayb bay ka yihiin maxaa ka mid ah ee ku muuqda run ahaantii ma garanayno waa inaanu dib u fadhiisanno isqiimayno qiimayn isku samayno dabeetana eegno boqolkiiba boqol baanu doonaynay waayo boqolkiiba 80 aanu u keennay waa iska dhaqan marka xisbi siyaasi doorasho galo ha guulaysto ama ha guuldarraysto inuu dib isu qiimeeyo laakiin kulmiye ahaan xisbi ahaan dee boqolkiiba 80 kama hooseyno xilligii uu madaxweyne muuse biixi cabdi xukuumadda soo dhisay xukuumadda waxaad ku tilmaantay inay yihiin koromo oo baarqabadii uu ka tegay madaxweynuhu ma kula muuqataa in xukuumadda uu soo dhisay ee aad koromada hore ugu tilmaantay inay mas-uul ka tahay in xisbigu guuldarray mar labaad waan ku noqonayaa xasan waxa weeye xisbigu dib buu isugu noqonayaa wuxuuna qiimeyn doonaa siduu doorashadii u galay halkaas baa waxa ka soo bixi doontaa sababta aanu boqolkiiba boqol u keeni weynin laakiin ma dhaliisanay xukuumadda run ahaantii doorashada xaggeeda kuma dhaliisani xukuumadda iyo madaxweynaha toona boqolkiiba boqol bay waajibaadkoodii guteen run ahaantii afrika saad ku taqaanid xisbiga haysta taladu wuu dowladeeyaa wuxuu isticmaalaa awoodda iyo dhaqaalaha dalka halkan kama dhicin ugu dambeyn intii aad xilka ka sii maqnayd ama xukuumaddiinii hore ay xilka ka sii maqnayd oo kulmiye axmed silaahi aad ka tirsanayd deegaankaad ka soo jeeday ee buuhoodle iyo xukuumaddu waxaad moodaa inay sii kala fogaanayaan maxaa sababaad leedahay run ahaantii wax weyn oo kala fogaanshaha oo ka jira ma jiraan deegaankaasi imika waa nabad dhibaatana kama jirto isbeddel weyn oo ka muuqda ama u dhaxeeya markii anigu aan joogiyey imikana ma jiro
marka waxaan aaminsanahay in wax walba ay caadi yihiin waxaanunu aada uga shaqeynaa aniga iyo rag kaloo badaniba sidii deegaanka nabaddu ay uga sii jiri lahayd khayrna waan rajeynana insha allah